ma ogtahay daawada xiriirka ka dhaxayn kara socodka iyo xawaaraha uu qofku ku socdo iyo gabowga? daraasadan aynu halkan maanta kusoo bandhigi doono waxaynu ku lafaguri doonaa xiriir ka dhexeeya qofku sida uu socdo iyo xawaarihiisa iyo habnuleedkiisa dhalinyar iyo marka uu gaboobo waxyaabaha uu kala kulmayo. saynis yahanada ayaa sheegay socodka xawaaraha uu socdo qofku inta ay daadiisu afartameeyada ku jirto ay astaan u tahay xaaladda gabowga degdega ah ee ku yimaada maskaxdiisa iyo jirkiisa. saynis yahanada daraasadda sameeyey oo adeegsaday qalabka lagu cabiro xawaaraha socodka qofka ayaa daraasadooda la xiriiriyey socodka iyo gabowga xiriir ka dhaxayn kara. socod gaabnidu ma keento oo keli ah jirka qofka oo gabooba, balse waxa kaloo ay keentaa ayay yiraahdeen khubarada daraasadda sameeyey qofka oo wejiga duq uga ekaada iyo maskaxdiisa oo yaraata. kooxdan khubarada caalamiga ah ee daraasadan sameeyey waxay sheegeen natiijada daraasadda ka soo baxday inay ku noqotay mid la yaab iyo fajac leh. dhakhaatiirta qaybta ka ahayd daraasaddan waxay baaritaan ku sameeyeen caafimaadka qofka iyo socodka waxa ka dhaxayn kara, gaar ahaan socodka qofka wixii ka sarreeya 65 ilbiriqsi xawaaraha uu ku socda, maadaama ay tilmaam u yihiin adkaanta murqaha qofka, sanbabka iyo sida uu u shaqeeyo, adkaanta dhabarka iyo aragga indhaha. socod gaabnida qofku marka uu da'da noqdana waxay saynis yahanadu sheegeen in laga dhaxlo waxyeello maskaxeed iyo gabow. calaamadaha iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo. daraasaddan waxaa laga qaybgeliyey ku dhowaad 1,000 qof oo ku nool dalka New Zealand oo dhashay sanadadii 1970kii, da'dooduna ay tahay 45 jir. tijaabada socodkana waxaa laga qaaday inta ay da'doodu ahayd da'da dhexe ee dhalinyarnimada. shakhsiyaadka daraasaddan laga qaybgeliyey waxaa sida oo kale loo sameeyey baaritaan la xidhiidha jirka, maskaxda iyo sida ay u shaqeeyo sanbabka xilliga ay da'da carruurnimada ku jireen. waxaa lagu sameynayay sanad walba baaritaan joogto ah muddada aadka u dheer ayaa daraasaddan la waday. waxa ugu dambeyn daraasadda lagu ogaaday socodka gaaban inuu yahay astaan muujinaysa qofku markuu weynaado dhibaatada uu dhaxli doono. sidaas ayuu yidhi Professor Terry oo ah hogaaminayay daraasaddan ayaa sida wada jirka ay u sameeyeen kulliyadda King ee London iyo jaamacadda Duke ee Mareykanka. qofka marka ay da'diisu gaadho 45 jirka, xawaaraha socodku wuu kala duwanaan karaa, balse xawaaraha ugu wanaagsan ayaa lagu tilmaamay inay tahay qofku inuu halkii ilbiriqsiba 2 mitir u jaro, waa isagoo ordayn oo socod caadiya ku jira. guud ahaan waxaa daraasaddu sheegtay socod gaabnidu inay astaan u tahay qofka gabowga sida ugu soo degdego oo gabow laga dhaxlo, gaar ahaan xubnaha ay ka mid yihiin sanbabka, ilkaha, habka difaaca cudurrada iyo wixii la mida uu ka dhaxlo oo noqdo qaar gaabis ah, halka dadka socodkoogu uu xawaaraha aad u yahay u sarreeyana ay dhibaatooyinkaas ay la kulmaan ay ka yar yihiin dadka socodka gaaban. waxyaabaha lama filaanka ah ee daraasadda lagu ogaaday waxaa ka mid ah qofka socodka gaaban maskaxdiisa marka la baaray inuu u muuqday maskax gabowday. carruurta yaryar ee socodka yarida kusoo barbaaray ee socodkoogu yahay mitir iyo 1.2 mitir halkii ilbiriqsi, celis ahaan garaadkoogu maskaxeed wuxuu gaadhaa 12 dhibcood, kaasoo ka hooseeya dadka xawaaraha dheer ku socda ee mitir iyo 75 ilbiriqsigiiba jara oo ay da'doodu 40 jir ka tahay. haddaba habnololeedka qofka, cilmi baarayaasha caalamiga ah ee daraasaddan sameeyey waxay xiriiriyeen habnololeedka qofka inuu xiriir toos ah ula leeyahay caafimaadkiisa jireed iyo garaadkiisa maskaxeed IQ-ga. dadka yaraantoodii laga bilaabo kusoo noolaa nolol wanaagsan ay ka wanaagsan yihiin dadka kale. waxay sidoo oo kale khubaradu sheegeen inay cilmi baadhis ku hayaan qofka oo isticmaala cuntooyinka kalooriga ah uu ka yar yahay iyo dawooyinka qaar sida ay nolosha qofka u saameyn karaan. ugu dambeyn khubaradu waxay daraasadooda kusoo gabeeyeen calaamadaha hordhaca ee la xidhiidha caafimaadka jirka iyo maskaxda inuu la xidhiidho habnololeedka qofka. markaa dadka waa inay habnololeedkooda inta karaankooda ah ay wanaajiyaan inta ay dhalinyarada yihiin ayna caafimaadka qabaan.